laamaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa saaka saldhigga dhexe ee degmada Kismaayo ku soo bandhigay laba eedeysano oo lagu eedeeyay in ay caruurta ka xadeeyeen gudaha magaalada Kismaayo waxaana afaafka hore xabsiga saaka isugu soo baxay dad aad u tiro badan oo ah ehelada cunug yar oo ay xalay ciidamada booliska gacanta ku soo dhigeen kadib markii shalay duhurnimadii laga xaday xaafadda Midnimo ee magaalada Kismaayo hooyo Farxiye Macalin Maxamuud oo ah hooyada dhashay Cabdullaahi Carab oo ah 2 sano jir ayaa sheegtay in ilmaheeda la waayay shalay barqankii baadigoo badan ay ciidanka booliska ku soo wargeliyeen xalay cunugoodii gacanta lagu hayo waxaana falkaasi loo soo qabtay Samiira Xasan Maxamuud iyo Shamse Sheekh oo ay booliska ku eedeeyeen in ilmahan yar ay ka xadeen shalay xaafad ku taal magaalada Kismaayo Samiira Xasan Maxamuud oo sida ay sheegtay ahayd qofka ilmahan yar ka xaday xaafadooda ayaa sheegtay in loo ballan qaaday lacag dhan $5,000 balse markii ay geysay cunugan halkii lagu ballamay loo soo diray $2 oo u dhiganta 52,000 oo shilinka Soomaaliga ah waxaana arintaasi ay ku eedeysay inay ku dhiirigelisay Shamse Sheekh balse Shamse way iska fogeysay eedan waxayna ku tilmaantay mid aan waxba ka jirin islaantan waxay dhahday cunuga meeshaas uu degan yihiin meesha ka qaad hayaan dhahay waan ka qaaday lacag ay ii sheegtay $5,000 waxay siisay $2 aan cunug ku qaado bis meeshan aan ka baxay Dudum aan tagay Dudum marka taan soo wacay waxaan dhahay cunugi waan wadaa intee geeya sanina ku imaan doon bulguud marka geesis gooska nina ku imaanayo ninkaas u dhiib sida ameesho tagay ay intaas oo qofan koon dhigi kari laakiin islaantan aan idaaday lacagtan ku siini qaad cunugan Farxiye Macalin Maxamuud oo ah hooyada dhashay cunugan yar ayaa u mahad celisay hay'adaha amniga ee cid waliba oo ka qayb qaadatay in cunugeeda ay dib ula midowdo cunugayga shalay 2 saac ayuu uga dhumay guriga taga inta ka dhaca nag si ilaa xalay 4 saac guriga dadeed ayaan baareeyay markay tahay 4 saac iyo bar ayaa wiil baadiyaha iyaan ka soo sheegay wiilashii soo daal ayaa hadana u naqan war wiilka halkaas baa la bartay iska xakameeyeen alxamdulillah shukru wiilkii jooga la yiraahdo maamo waa lagu keenayaa adeerkay baa raacay wiilkii la keenay aragtida aan arkay raggi iyo wiilashii iyo cunugii ooyin ayaan ooyay farxad oo ooyin ayga keentay hadda alla u sugnaatay Warsame Axmed Geela taliyaha saldhigga dhexe ee degmada Kismaayo oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyay sida ay ugu suurta gashay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigaan ilmahan yar ee laga xaday magaalada Kismaayo isla markaana la geeyay deegaanka Duduma Guduud oo Kismaayo ka jira dhanka waqooyi meel 5 kiiloomitir u jirta magaalada oo lagu magacaabo Duduma Guduud waxa lagu qabtay gabadhii iyo cunugii ay wadatay iyadoo u waday dhanka Buula Guduud gabadhaas sidaad ka arkayseen ama iyadoo ay ku warramayso iyadoo ay sheegtay waxay cunuga u qaaday inay si qaado dadna gacanta u geliso cunugaas oo barnaamijkiisu u ahaa ganacsi in cunuga laga ganacsado waxay sheegtay cunugaas in $5,000 la ku geeyo Buula Guduud dad kale ayaan ku sugayay oo rabtay inay ku wareejiso waxaan u sheegaynaa bulshada reer Kismaayo shabakadii inaan qabanay gacanta ku hayno waxay mudnaana sharci ka heli doonaan waxaan u sheegaynaa kuwa kale ku hawlan hawshaas inaynan u soconaynin waxay iyagu damacsan yihiin talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qaybo ka mid ah magaalooyinka dalka sidan oo kale la sheegay in caruur looga xaday waxaana soo baxaya kooxo gaar ah oo caruurta ka ganacsada walina waxaa jirta waalidiin badan oo caruurtooda ay ka maqan yihiin isla markaana aysan xilligan meel ku sheegin Iidlaadan Maxamed TV-ga Universal magaalada Kismaayo.